gaari xamuula oo keligii iswada iyadoo aanu darawal saarnayn ayaa loo ogolaaday jidadka dalka Sweden markii ugu horeysay waxay tijaabadiisa socon doontaa ilaa dhamaadka 2020 qodobkaas iyo kuwa kaleba waxa inoo haya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Saraad qalab cusub ayaa ku soo biiray telefoonada casriga ee maanta shiinuhu waxay sameeyeen OnePlus waxaanay shaaca ka qaadeen OnePlus 7 Pro inuu yeelanayo 3 kamera oo kala duwan su'aasha markaa la isweydiin karaa waxa ay tahay kameradii qofku isku sawirayay xagee taala meel bay ku qarsoon tahay haddii aad u baahatana waad helaysaa telefoonkanu waa mid ka jaban kii hore marka la dhigo suuqa hay'adda NASA ee Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday gabadhii ugu horeysay ee dayaxa cagta saarta inay imanayso 2024 wakaaladda hawada waxa ay sheegtay taas inay dhiiri gelinayso jiilalka soo socda ee dhalinyarada haweenka konton sano ayaa ka soo wareegtay markii dayaxa bini'aadmigu gacanta dhigay tan waxay noqonaysaa tallaabo yar dhinaca haweenka iyo tallaabo ballaaran haddaad ka eegto dhinaca haweenka oo dhan Amazon waxa ay bilaabayaan robot la sheegay in uu amarka bixin doono haddii wax la iibinayo mashiinkaasu waxa la sheegay in uu qaadi doono 600 oo boqoshadood saacadii hase yeeshee waxa la sheegay ilaa 1300 oo qof inay ku shaqo waayi doonaan meelaha Amazon ay leedahay shirkaddu waxa ay leedahay robotkaasu waxa uu qaadan karaa amar uu ku soo gudbiyo waxa qofku doonayo laakiin waxa aad moodaa in uu la wareegayo shaqooyinkii cuslaa ee bini'aadmigu qabanayay ugu dambaystiina gaari iswada oo dareewal aanu saarayn ayaa la keenay wadooyinka Sweden shirkadda Enray ayaa tijaabisay gaariga ku shaqeynaya korontada waxaana la sheegay inuu gudbi doono wadamada Scandinavia oo dhan gaariga meel fog ayaa laga daarayaa laga wadaa laakiin bini'aadmiguna waa fuuli karaa kacayn karaa shirkado kale ayaa jira iyaguna ka shaqeynaya gaarigaas oo kale laakiin gaarigu hays wada dareewal ayaa saaran